السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mid kamid ah qisooyinkeena aan idinku talagalnay toddobaadkan. Haddaba waxaynu idin haynaa qiso aad cajiib ah oo kamid ah qisooyinka la yaab kale ee dunidan aynu ku noolnahay ka dhacay. Haddaba qisooyinkeena waxaynu ka soo qaadanaa qoraaga reer Kuwait buugga uu qoray ee qisooyinka cajiibka lagu ururiyo. Haddaba qisadan mar kale waxay ka dhacday dalka Morocco. magaalo la yiraahdo Anza waxaa ku noolaa wiil iyo hooyadiis. hooyada ayaa soo korisay wiilka magaciisa waxa la yiraahdaa Ibrahim Hassam, laakiin wuxuu ku magac dheerayaa Anza waa masqad ra'sihi, meesha uu ku dhashay ayaa loogu magac daray. waa ninka sheekada ay ku socoto Ibrahim hooyo danyara ayaa soo korisay. aabihiisa isagoo ku jira uurka hooyadiis ayuu hooyadiis ka tegay. hooyadii marka la kuftay waa soo korisay, waxna ma haysato hooyada. Ibrahim wuxuu iska noqday ciyaalka magaalada iskood uga shaqaysta. 8 sano asagoo jira ayuu wuxuu bilaabay inuu soo xamaasho. ciyaalkii dhex galay darbijiifka ahaa wuxuu soo qaraabo ayuu hooyadiis u keenayaa. waa cunug aan caadi ahayn, karti badan, dagaalyahan ah. kuwa ka yaryar iyo kuwa waaweyn nagtu ka saaraa. cunuga caadi baa. cunuga marka wuu koray, iskuul ma jiro, waxbarasho ma jirto, dadku waa iska danyar, suuqaan u qaraabtaa. cunugii markuu qaan gaaray marka oo nin weyn uu noqday, wuxuu noqday nin maaragtay awood badan uu noqday, macnaha laf weynin u dhashay, xoog badan. alwaxshidan macnaha qof oo bahal ah camal, maaragtay dugaag oo kale. waa bini aadam ma ahay dhaakan. macnaha xooggiisa iyo awoodda uu leeyahay iyo ninkaas ilaahay awoodda uu siiyaa lagu leeyahay. ninkan marka suuquu ka qaraabtaa moogta. ciyaalka dhan waxay soo xadaan iyo waxay la soo gooyaan iyo waxay soo dafaan iyo asagaa loo keenaa. waa kaabaha suuqa waayo. maalin maalmaha ka mida marka nin askari ah ayaa wuxuu arkay cunuga awooddiisa iyo xooggiisa iyo kartidiisa iyo sida uu wax u kala maamulayo iyo ciyaalka asaga maaragtay suuqa la jooga sida kaabaha ugu yahay. iyo wuxuu dhahay niyow ninkan haddaad ciidanka ku darta ka waran. alquwaat almusallaxa almalakiya laano ciidamada militariga ee boqortooyada allah wadanka Morocco. ciidanka khatarta waay. niyow ciidankaas haddaa ninkan aad u heli lahayd, nin khatar u ahaan lahaa. ninkan tababarka iyo waxa kana uu qaadan lahaa. wuu la sheekaystay marka. adeerow ii imaa yiri kaale. magacaa Ibrahim xagee degan tahay? aniga meeshaan degan oo yiri. maxaa qabataa? wallahi waxa ma qabto suuqan iyo dariiqyadan iyo waxaan iska xamaashaa. dadka maqaayadaha iskale iyo dadka dukaamada iskale aan ka hagaajiya, qashinka ka qaadaa, magaaladaydaas iska maraa, dadkayga iska shaxaadaa. meeshaas marka iskaga noolaa yiri. hooyaday oo qof weyn ahna guriga iska joogtaa, waxba ma hayso. aabayna hooyaday uurka uu ka tegay u dhah. marka hooyaday anay soo korisay, anigana de meeshaan aan joogaa. yaraanteeda 8 sano markaan jiray saan suuqaan u soo galay. hadda oo aan 20 jir ahay meeshaan ka xariiftaba. arjaxan iyo waxbuu iska wataa marka, waa iska danyar. ninkii marka wuxuu yiri haddaan ku wado oo ciidamada ugu awooda badan ee malakiga boqortooyada ciidanka la yiraahdo, waxa la yiraahdaa alquwaat almusallaxa almalakiya la yiraahdaa. haddaan qoladaas on ku geeyo ka waran tababar qaadatid,
روح الشغلية وير أنا عيدا وحن وابا كدم بيا الله هاي بس نكان مركا ايش عيدا كنت تقولني ونكان في عالم ماشي سواركي كان اللي نقول توبرك وجيني كي توبر على سي توبرك لا سي ولا نمبر 1 صبحا إلى أمريكس وهن نود بدن وحليه توبر نوع على قاعدة سجى نمبر 1 قلعي ديارة هليكوبتر كان لسه صوتوريا نمبر 1 وقلعي بدأ لو قد بالانيا كان على سمينيا نمبر 1 حركها لو سعريا قريها لكوريا نمبر 1 وحي توبر أهار نكان نمبر 1 وصبح سلكيش وكالين مرك حيلا ذنيو نكان عادي ما ديكي مركا إذا كان وحو كبيري قيبته وليبا قاركا وطببرا القوات المسلحة الملكية الخاصة كوالي لذو وقاركا كواسو كجراني كان رجل لغو حساب تمواني كان مركي هولقل وحي باداني وحانيو عادي ما هذا حوق يشنك عادي ما إلهي با حوق سيا وحوين ندل يرى حوق بدن أو ما شاء الله وين ninkii ciidankii oo ku jiray tababaraa loo qaaday meelo kala duwan la geeyay oo soo shaqeeyay markuu sabtan iyo xoogaa gaaray oo ninka nin weyn noqday ayuu ninka waa inaa guursataaniyo marka gabaruu marka ayuu la hadlay way heshiiyeen gabadhii guursaday gabadhii waxaa la sheegayaa marka qisada ku qoran saddex cunug ay u dhashay oo macnaha degdeg ah oo waqtiyo isku dhow ah laakiin mushkiladda gabadha qabsatay maxay tahay ninkan waa wahsh waa nin dabeecad iyo bini aadan caadiya maba ahaba ninka laba eray hadday isdhahaan dharbaaxyadu ku dhijinaan waa garaaca war waxay leedahay waxa kan muxuu ahaa inkaarta qaba way caroonaysaa gurigooda aadaysaa haddana u tagayaa ergo u dirayaa war raalli ah oo loo soo celinaya marka caqli badan awoodda waa la leeyahay laakiin caqli ma jiro oo baleeyaa ninka ka hor imaado waaba dilaa lagu leeyahay waaba naxayaba gabadhii markiskiita ee naftu ka qaaday 3 sano ay xoogaa wada joogeen 3 cunug u dhashay war waxay tirinayo ninkaan nafta iga dhacday aniga bas khalaas ninkaan maba la noolaa kare tirinayo bas waaniga ورنيكا نفتو إيقا قادين هذا نيكا وايد دلي ورنيو إسكا كيفورة تر مركا ما مكفورة غير كيدي مركا أو حيل هذا نيو قواني واكو تيدي مركا إسكافو نيكا قواني والربا ولي موقتاي مفوري كرتي نمدي كرتي شروع دو وضا كي نظام كي وحنا مارتي كاوري ماراي نيكي مركا محكمة دالجي قواني وفوري وحلوغو حكومة مركا عرورتا نفقدودي عرورتا انتدودي عانهودي وحودي إنو بحيو نكانا دي حوغاقا وكسوقاتو عيدانكا أساقا كما بدنوا سنة وحمد ديبين سنة لباد وحمد ديبين سنة سدحات وحمد ديبين markii daba gabadhii maxkamadii tagtayadii ammaanka ku dacwootay waxay tireen kan 3 sano uu la dhuuntay nafaqadii caruurti kaliya ku baabay meesh markii dawlad jirto waasaas nadaam markuu jiro waasaas gabadha cunug inta lagu dayaco la iska cararo suura galma waa laga daba soo qabana askariga kan ugu fiican ahaa mid kasta ninkii waa la soo qabtay waa la keenay waxa la yiraahday ما خلاص أنا وبحنايا كان بحنايا بلا لو قبتي لبا بلا لو قبتي 3 بل مركي مرسو بحواي محكمة ديالي كان قاضي تطبب له حبسي على حكم حبسي على طول هذا أبا أسكر سؤال قوات مسلحة ملكية بقرتو يدعي كذا حسب الله قول الله ماشى شرعي إنك يجبي واجبي تطبب بالحبس هذا صوب بحضر هذا أنا بحواي يسول عكتا يقابك كوب بحواي شيء ويسو بلقو كردنا الله ninka marka waxa leeyahay waxshi leeyahay sheekada magaceeda marka waxa leeyahay qaatilka ilaalada xabsiga leeyahay ilaalada qaatilka diraaga waaye ilaalada xabsiga leeyahay sheekada bilaabanay marka ninka magaalada uu ka soo xarooday wuxuu baaday xabsigii ninka xabsigu soo galay marka darbiga la leeyahay weyninka
haddaa aragto tababarka la qabo waxaan lagu tababarnayn male derbiya la fuulaa baddaa lagu dabaalanaa diyaarad ciidamada iska soo tuurayo waa lasoo tababartay wax tababaroo ciidana ninkan u dhiman ma jiraan xabsigiyaa lasoo galay weliba xabsiga waxaa lagu soo xareeyay meel ay ku xiran yihiin qolooyin gaangistaro ah oo qatar iska dhigdhigaayo macalinka weynaa soo galay marka macalinka weyn markuu soo galay carfaantii waa la is waraystay waxaa la yidhi macalinkan awooddiisa intay la eg tahay sidee wax u jiraan ninkan marka waa xanaaqsan yahay no naftahays iyuu u xanaaqsan yahay naagtii soo dacweysay oo uu furay oo ilmaha u dhashay ayuu wuxuu leeyahay goormeen nolosha ku qabanaya kuwan meeshaan joogo oo ninkaan ka sheekaysanaya maba lagu jiraba ninkan waxaa leeyahay naagtan aniga say ii soo dacweysay soo xirtay see u noolaanay aan iska leeyahay ninkan marka isagoo meel iska fadhiya oo iska wareersan aqolo inta u timid shaah meesha uu dhigtay baa mid ka qaatay waxay tijaabinayaan ninkan inuu sanbac yahay tacbaan yahay iyo ayaga kama warqabaan xaalkiisa moogtahay ninkan caadi maaha cunsurul waxshi allaaba ninkan marka sheekada waxaa ku qoran dhinacaan waxshiga waxaa layihahdaa qofka bahalka oo dilaaga ah waa la yidhahdaa af carbeedka xayawaan waxshi oo kale maaragtay xayawaanka waxshiga waxaa waaye xayawaanada wax dila waaye wax oo cuna dhurwaaga libaaxa waxaana waxshiyaa layihahdaa ninkan marka waaba saa waxshiyaa loogu magac darayba marka nimankii askartaha u bixiyey nimankaan marka xabsiga ku jira ma yaqaanaan ninkan waa la tijaabinaa laakiin midaa wuxuu la tegay bakeerigiino xabsiyada dadka gala waxyaabaha laga sheego sheekooyinka laga qoro waa yaabaysaa waa lagugu dayaa waa lagu garaaca waa lagu dilaa waa ninkaan marka isagoo meel fadhiya oo la yaaban oo ka fakaraya nin naagtan ilmaha kuu dhashay sidee kuu soo xirtay leh kuwa intay yimaadeen shaahiisay ka qaateen wuu fiiriyey wuu isaga aamusay ninkaan filin kalaa isaga daara naagtaasuu u qaban lahaa uga takhallusi lahaa ninkaan alaabtaasaa u shidan shaahiyaa la qaatay waa la cabay waxaa la bilaabay marka in la qosqoslaa la bilaabay qaar marka waxaa ku jira qolooyinkan gaangisterka ah jiimka galayoo murqo iyo wax leh laakiin ninkan marka loo fiiriyo 10 ayagaa iyo asagaa isku awood waaye markaasay qosqoslaaya ninka waasaan u malaynaynaba maahana ninkan marka hal mar uu soo kacay markuu soo kacay horta ninkii qaaday bakeeriga ninkii qaaday oo macnaha bakeeriga ninkii qaaday ayuu inta u tegay ayuu ceeji nab dhahay firiq kaadida ka dhamaatay kuwii kale ka celiyay maagayaan hal mar uu gacanta saa siinaa saddexa dhacaysa hal mar uu gacanta saa siinaa saddex kala dhacaysa nin walba marka meeshiis derbigiisa ku celiyay ninka waxaa bini aadan maahane aan ka joogna dheen kiisuu firiq la markay nafta ka bixi rabtuu sii daayay ma la hadlin adiku maxaa ahaydeen iyo maxaa shaahayga kuu geeyay midna ma dheh wuu soo baxay meeshiisa iska fariistay habeenkii la gaaray waa la seexday ninkaa ma seexanayo nimankii waa yaaban yihiin ninkaan waa soo jeedaa marka nimankan marka waxaa loo keenaa alaabooyin iyo waxaa looga keenaa banaanka qolooyinka loo tuugaa la shaqaysta iyo wax u keenaa cunno iyo waxaas iyo fruits iyo maalintii dambe ninkaan wuxuu fiiriyey nimankaan oo fruit cunayaan macnaha tufaax iyo waxaan iyo meesha loo soo geliyay hal mar uu hadlay marka suu u soo galay maba hadlin asaga wuxuu dhahay wax alla waxaa haysaan oo fruuda meeshaan ii keeno halkaa keena ninkaan dee ninkii kaabaha u ahayo meesha dhan haystay ayuu inta eeji qabtay oo kaadi ka keenay wax kaloo la hadli kara maa jira kii kaabihiyaa soo qaaday alaabti asagaaba meesha keenay ninkaan marka wax kastoo loo keeno way u keenayaan wuxuu leeyahay wax kastoo la idin keena halkaan keena nimankii xabsiga xoog ku qabsadeen ninkaan marka suu isaga daba wareegaya 7 biloodaa dhammaatay xabsigayaa laga soo daayay
go-iisuu soo qaatay soo u soo socday gurigii gabadha ay deganayd oo asagaa soo dacweysay oo ilmaha u haysay ayuu yimid albaabkii u gargaraacay way furtay iyadaa furtay ee furaysa maana ceejiyo nabdhahay ninkaan ceejibo gacanta caadi maaha nab ceejiyo ku qabtay ilaa nafto ay ka baxdo ceejiyo ku hayay fidiq uu ka tuuray waa la iska lugay waa la iska baxay mid marka meesha joogaa u jeeday booliiskii alla wacay waxaa la yidhi ninkiias maaragtay gabadhaas meesha ku ceejiyey gabadhi waa loo yimid waa dhimatay ninkii waa la soo qabtay markii labaad waay maxkamadaa la geeyay dilka adiga miya anaa ka takhalusu dhaay maxaa uga takhalustay qalada iga gashu dhaay qalad ma kaa gashaa bas qaadiga wuxuu yidhi meesha marka xukun dil ah oo la isku fuliyo waa laga joojiyey meelahaas Morocco iyo Algeria iyo waxa kan iyo wadamadaas xabsi daayina lagu xukumay tee loo soo celina xabsigii barlabaad xabsigii la keenay alwaxshi xabsigii yaa la keenay macallimiintii xabsigii ninkii markii lagu soo celiyey way yaabeen meeshii lagu soo laabtay markaasuu wuxuu yidhi hawshu sideedii waay marka ninka meel u socdo male mogtahay meesha la joogaa ninka maalintii dambe suu meesha ugu jiro uu jactaday wuxuu yidhi niyow meeshaan si looga baxo uu fakaray ninkaan inuu baxo isku dayayaa subaxii marka waxaa jira qolooyin ciidamadan asluubta ka tirsan oo xabsiga jooga albaabka kasoo furo dadka meel barxada isugu keena jira marka waxaa jira qayb ka mida maxaabiista hawl culusaa lagu sii xukumaa macnaha dadkan xabsi daayinka oo kale shaqo inay qabtaan iyo waxaas la sameynaa marka waa la qaadaa meelaa la geynaa katiinada iyo waxbaa lagu xirxiraa shaqay soo qabanayana dana waxbaa adiga nidaam noocaasaa jira ashqaal shaaqa la yidhahdaa af carbeedka waxa waaye shaqo culusaa lagu xukumay qofkan marka saas waa marka xukunka la ridaya qaar waxaa lagu xukumaa xabsi iyo shaqo waa laisugu daraa shaqo culus qaar xabsi iyo ganaax saas noocaas waayo marka ninka marka alaabtaas ku xukumay guryaha dowladdu dhisanaysa iyo mashaariicda iyo meelahaasa maxaabiista la geeyaa maalinuu marka jaanis wuxuu ku helay mid ciidamada asluubta ka tirsan qorigu marka wataa ninkaa marka gacantu waa laga furay inuu shaqeeyaa la rabaa lugahana marka uu ka katiinadaysan yahay ninkii marka hal maruu nab inta soo siiyo qoriga ka qaatay qoriga markuu ka qaatay kuwii kaloo ciidanka asluubta ahaa qoriga markuu saas u yidhi waa kala carareen ninkii horta xabadoo ku dhuftay wuxuuna ka qaatay furi wuxuu iska furay lugihii maxaabiistii kale ma ordaysaan ma baxaysaan iyo midna ma dhihin asagu halkaasu ka baxay wuu gooyey kuwii kale xabaday kasoo dabarideen ninkaan waa cararaday waxaa la yidhi wuu baxsaday ninkiina wuu dilay markuu baxsaday ninkaan hooyadiisu u tegay hooyadiisoo ka walwalsan xaaladiisa markaasuu wuxuu yidhi hooyo go-aanaan gaaruu yidhi waddankan Morocco la yidhaha inaan isaga tagaan rabaa oo aan u tahriibo wadamadan Yurub iyo meelahaas iska galo marka waana la raadinayaa uu yidhi xabsigaan ka soo baxay marka haddaa i weyso meelahaasaan aaday waayay tiri ninkaan uu soo baxay marka bad iyo berri iyo meel aa waddanka kaga bixi karta male meel walba ninkaan sawiradiisa la dhigay qolooyin marka wuxuu arkay oo la shaqaysta immigrationka meel walba iska daba wareeg ma ka dhamaado markaasay waxay yidhahdeen annagaa ku tahriibinayna ee lacag ilaa $7,000 qiyaastii lagaa rabaa ninkaan marka intuu shaqaynayay wixii lacaga iyo waxbuu haystaa 7,000 marka waa heli karaa wiil 7,000 noo keen niman immigrationkii waxaan ka shaqeeyaa jira dhinaca badda aan kaa bixinaynaa marka meelahaas Spain iyo dhulkaas iska galaysaa Yurubtaas marka okay ninkaan marka waddanka inuu ka dhunto rabaa
laba dambina waa ku jiraa naagtii asaga uu qabi jirayna waa dilay nin askariyana waa soo dilay ninkaan 7,000 nimanka u dhiibay 7,000 waa la ballamay 2 isbuuc kadib doontaa lagu saaraa la yiri waa dhuumanaysaa meeshaas saasa meeshaas imaa meeshii uu waa loo gooyay ninka ay lacagta inay ka cunaan rabaan ay doorkaan u gooynayaan maba xisaabtaba ma ugu jiraan الوحشي اللي إبراهيم الوحشي اللي قال نين عادي باها دي كان ماشي يمدو واي عير ويقو يدميا واي مالك الله صلابت ويقو مغيين مال السدحات كوحو فاهمني كان مركا لعقتي شيء اللي قلتي لعقتي شيء اللي قلتي ودي كان آمني لكن مركا بيالو رادسو بلاو asagii wuxuu iloobay illa raadinayo waa iloobay kan asagii wuxuu raadsanaa marka nimankaan inuu ka takhaluso rabaa 7 ku ka culay labada nin yakii gabgablayaasha iyagoo meel jeeraa qamri ku cabaayo maqaayad u shidan tahay oo soo galay horta dhaladii inta qabtay oo wuxuu yiri kan 7 ku keenay madaxa markay soo qaadeen waxay yiraahdeen 7,000 ha waxoogaa dib u nooga dhacay markabkii ha dib u ka dhacay ha 7,000 ma keenaysaan ma keenaysaan markab ma barabo dhaarin ma ayna markii markabka lacagtay cuneen miya ha mid walba dhaladiisu inta qabto madaxa uga jabshay kana madaxa uga jabshay labadooda iyagoo sakaraada ayuu ka tagay horta meesha kuwaas kuma dhiman asagoo sii socda marka booliiskii 4 dhacay kiima waa la qabtay nab labadan nin marka ma dhimano toodaan gelin laakiin ninka naftu ka qaaday waa dhalow soo ugu garaacay oo ku jajabiyay waa la qabtay markaan booliiska markay qabteen markala hadana maxkamadii la geeyay qaadigii loo geeyay ikaan hadda ka hor waxa lagu xukumay xabsi daa'im wuxuu dilay naagtii uu qabi jiray ayuu dilay haye haddana waxa loo haystaa kiis ah inuu dilay askari ka tirsan ciidanka asluubta uu baxsaday xabsiga ka baxsaday isku day kale haddana 2 nin oo dhalinyaro ah inuu dilo ninka waxa la hayay run waa u dhaay maxaa kale oo lagu xukumaa marka ninkan awal la soo xukumo be waxa la isku xukumo wixii ugu weynaa mar hore lagu xukumay ninkan hadda hadii la qabto maxaa lagu xukumaa qaadigii marka buugiga la fiiriyay meel kasta la fiiriyay waa loo hayay marka waxa la yiri الحكم الإعدام على حكمه معناه توجش حكم دلة على حكمها حكم دلة الشرعي ودك ما قرأي ومعناه دستوركي ودك واحد مرة على جساري بركة واحد له حكم دلة أو كقرنارة لكن ونقرأ نن حبس دائن حبس كحرا ونقرأ بركة ليه يعني قف دلة هلا دلو waxaa ku jirta nolol ilaahay uu leeyahay saas oo kala waay sharcigooda waxa ka saareen qofkii qof dila in la dilo ninkii marka hore naagu dilay xabsiga la geeyay uu baxsaday nin kale uu dilay maxaa lagu xukumaa maanta oo dhan dad uu dilayay baad hore ninka waa waxshi ninkuu qabto naftu ka qaadaya marka waxa la maxaa sameeyay xabsiga lagu celiyo dhaay aniga sharci kale ninkan ha lagu toogto laay maayo laakiin xukun dil ah aan ku qoraa maalinkii dil loo bedelaa la dili doonaa laakiin xabsiga la geeyna xabsiga kii uu ka baxsaday waay dadkii nagtu ka qaaday dadkii oo dhan waa yaabay odaga al-umum xabsiga la geeyay xabsiga marka si fiican ninka loo ilaaliyo meesha la geeyay meesha ugu jira maalintii dambe ninkan wuxuu go'aansaday meel musqula oo xabsigu leeyahay oo biro shuba iyo wax ku xiran yihiin sirig iyo waxaas ayuu isku dayay inuu jabiyo waxbuu isku dadayay nimanuu la kaashaday nimankii xabsiga ku jiray meeshaan aan jabinuu yiri meeshii wixii iyo aala jabiyey ninkaa marka 2 bir uu kala qaadmay say u wadeen dhowr maalmood uga shaqaynayeen birahaas la kala qaaday ayuu wuxuu damcay inuu ka baxo ninkaan madaxiisa fuusta la eeg alwaxshi leeyahay madaxii barka soo baasho madaxii ku qataarmay marka baasho wuxuu u yeeray sidii
dameer oo kale waa laisku soo baxay ninkii meeshu berihiyaa madaxa qabtay nimankii oo waxaa la keenay xabsiga wixiyaa la keenay berihii hala jaraa layidhi intii wixii laga daba wareegayay ninkii naftiga ka baxday halkaasuu ku dhintay marka sheekadu marka halkaasay ku eg tahay laakiin waxaa la yaab leh wuxuu leeyahay qoraaga sheekada 2003 ilaa 2009 ayaa musalsalka qaatilka oo xuraaska oo maaragtay sijin ninka dilaaga ilaalada xabsiga ah ayaa Morocco qabsaday marka waxyaabaha la yaab kale oo shuruucda uu ka hadlay waxaa ka mid ah qofkii qof dilo hal la dilo baa diintu tiri laakiin dawlado badan gaalada culays ku saartay nimankan maartay dawladahan gaalada waxay yiraahdeen waxaas ma dhici karto lama dili karo qofka dawlado badan markay iska daayay marka dhibkaan oo kala dhacayo leeyahay marka dhibkaan ninkii ninuu dilay waa la dili waayay haddana qof kale uu dilay haddana qof kale marka dab maxaa lagu sameynaa wax lagu sameeyo mar hadda ilaahay ayaa dilay marka meesha ay way dili waayay laakiin meeshii asaga uu isku dayay inuu ka baxsado ayaa madaxiisii meeshii lagu qad marka toddobaadkan qisadaas ayaynu soo qaadanay haddaba wixii fakari aragti aad haysaan oo qisadan aynu ka ogaan karno noo soo qora inta aan mar kale kulmayno iyo qisooyin kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo